dibadda injineer fursade dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda South Africa miidiyaha waxaa la assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo qabanqaabiyaasha xafladan soo qabanqaabiyey oy muujiyeen in waqti yar gudihiisii ay xaflad noocan oo kale ku qabanqaabinayaan waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo kooxda madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo hogaaminayo chief staffka mudane fursade ku xigo chief protocolka Saciid Kambala afhayeenka Cabdinuur protocolka Sabtow Arab iyo securityga runtii haddaan idiin sheego imaashaha madaxweynaha inta ku yimid waqtiga kooban lagu suurtageliya haddaan idiin sheego waad yaabaysaa 2 maalmood baa lagu suurtageliyay taas waxay idin tusaysaa madaxweynaha inuu jecel yahay South Africa jaaliyadda Soomaaliyeed si uu arrintaas waxaa isku dabar jibiyey oo ka shaqeeyey wasiirkeena arrimaha dibadda Axmed Iscawad ayaa ka shaqeeyay invitationka markaan helay waxay ahayd habeenbar ay ahayd asigaan u forward garay asiga isla markii madaxweynaha u forward garay jawaab lagu soo celiyay madaxweynaha u diray waxay ku tusaysaa taas wada shaqeynta dawladda dhexdeeda waxaa aad baxad ugu celinaa injineer fursade iyo Saciid Kambala ilaa habeen barkii aan ka shaqeynayay inaan madaxweynaha u yimaado alxamdulillah madaxweynaha waa yimid madaxweynaha fariina u dhiibteen gudoomiye caamir wuxuu dhahay docada inta laga bilaabo laakiin madaxweynaha ma dhahayn campaign inta ka bilaawday campaign inta ka wada bilaawday waa lagu guuleystay habeenkii aan oo aad u khudaynaysay maxalla jaaliyadda ugu horeysay 2016 waa lagu duceeyay madaxweynaha maalintaas oo madaxweynaha tahay jaaliyadda quraan akhrisay deegaanka waxaa laga yaqaanaa markaan dugsiileeda ahayn wax kas macallin quraanka loo tagaa dhii jiray qof haddii xanuunsan quraanka loo tago beerta dhika allah macallin quraanka loo tago dadka kuusoo arrintaas kuusoo ooyay oo kuu keenay sababtooda waa jaaliyadda inta degan macnaa sharafta Soomaaliya ay kor u qaadeen jaaliyadda waad aragteen waad daabateen madaxweynaha wuxuu ka mid ahaa markuu soo galay madaxweynayaasha ugu sacabka badan oo ugu carabka badan ayuu ka mid ahaa kuwiintaas ka imaanin South Africa markaan kaaga sheekayo mar waxaa jirta dad Soomaaliya ah India inta ka jirta lagu dhaay laakiin hadda Soomaaliya ah dad durbidii way ku aqoonsanayaan waxaana dhaliyay jaaliyadda inta ku saabsan sharaftaasi ayaga askale ayaga waxay u noqdeen safiiro aan loo soo dirsan waddankan ay isdireeneen waana lagu guuleystay South Africa maanta jaaliyadda Soomaaliya waxaa looga yaqaanaa dad shaqaysanayo shaqana abuurayo waxa ku saabinayo waxaa ka mid ah kumaan kunoo Soomaaliya u shaqaynaya jaaliyadda u shaqaynaya
sidaas darteed muraaqabadna maaweyn sida ay kuu sheegeen jaaliyadda kaaga cabsadeen waxaan rabaa inaad uga duugnaato codsigoodii inaad labada gacan ku qaaddo madaxweyne siday rabaan ha loo yeelo odayaasha laga wadaynaya haddii odayaal lagu baadaa laga wada odayaasha jaaliyadda igaga muhiimsan odaygan jooga jaaliyadda igu muhiimsan hadday dhibsadeen odayaasha madaxweyne waxaa ku leeyahay ka wada odayaasha waxaan kusoo gabagabeynayaa markana kusoo gabagabeynayaa ma dhici karin madaxweynuhu xafladaan ma dhici karin haddaanan ahayn guddigan jaaliyadda ka tirsan iyo kooxdaadii madaxtooyada ka socota haddaan iskaashin xafladaan saan uma dhici karin xafladaan oo dhan waxaa lagu abaabulay 6 saacadood waxaan dhameen mudan madaxweyne marka aniga kaalintay waxay ahayd maadaama wasiirkayga joogo inaan wasiirkayga ku soo dhaweeyo si uu madaxweynaha ugu soo dhaweeyo aad iyo aad baad umahadsantahay intaana madaxweynaha u yeelin inaad tihiin dad sharaf leh Soomaaliya sharaf yeesheen waxa uu mid jamaal baa sheegay shalay markuu madaxweynuhu soo galay madaxweynayaasha markii midowga soo galay waa la sheegay hadda madaxweynaha dalkaas madaxweynaha Soomaaliya markii la dhaxay dadkii 60 ku dhawaa oo garoonka buuxiyay madaxweynaha wuxuu noqday dadkii ugu horreeyay madaxweynayaashii ugu horreeyay ee ugu 5 6 7 ugu horreysay oo loogu sacabka badnaa waxaa la yidhi sababtu maxay tahay waxaa la yidhi sababtu laba midood ama labadaba wixii Soomaaliya u geysatay la dagaalanka midabta koorka South Africa ANC taageeradeeda Soomaaliya meel fiican ka soo laakiin dadka xusuusta talabaad waxay noqon kartaa dadka Soomaaliyeed sida quruxda badan ee u mataleen dadka Soomaaliyeed iyo sama magaca iyo sharafta weeyaan qaadan baa madaxweynuhu door biday ama qoleeska saaray marka taas waxay muujinaysaa inaad tihiin dad Soomaalida magac weeyaan talabaad madaxweynaha markuu la hadlayay madaxweynaha South Africa hadda mar labaad la doortay ama marka horeeto istiriyay waqti hadda la doortay ayuu wuxuu uga hadlayay dhibaatooyinka ay haystaan qaarkood ama maqallo iyo kala hadlay markaas madaxweynuhu wuxuu ku yiri dadka Soomaaliyeed aad baan u jecelahay waliba waxaan jecelahay inaan haddaan awoodi karno to clown them inaanu Soomaali camal aan iska dhigno marka labada muujinayaan inaad tihiin dad sharaf leh Soomaaliya magaca u soo jiiday iyaguna maaragtay magacooda mutaystay hadda aan soo dhaweeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo بسم الله الرحمن الرحيم وزير قاعد واحد يبدا اذا عوض شوف ستاف مدحتوينا بروفيسور كورسلي سفيرك الصومالي وقضي ساوث افريكا iyo howlwadeennada safaaradda odayga ugu weyn dadka degan ee Soomaaliyeed ee South Africa mudane Hiraabe culimada salaadiinta aqoon-yahanada dhalinyarada gabdhaha bulshaweynta jaaliyadda reer Koonfur Afrika
gudoomiyaha jaaliyadda iyo guddiga soo qaban qaabiyey caawa munaasabadan xafladan quruxda badan gudoomiyaha guddiga ganacsiga bacda saxaafadda yani ibn caamir kulli waxaad ku salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah mahad leh oo muddo 2 sano iyo bar ka yar isukeen soo celiyey annagoo nabada waxaan rabaa inaan mahad celiyo guud ahaan jaaliyadda soomaaliyeed afrika markii hore waan idin imid runtii taageerooyin ugu badnaa oo aan ka helay jaaliyadaha soomaaliyeed ee dibadda qurbaha jooga xaqiiqatan soo dhaweyntiinii markii aan boorka imid ilaa markii aan baxayay xaqiiqatan qof haray qof weyn iyo qof yar iyo gabdhaba ma jirin weliba waxaan xasuustaa habeenkaas xafladda aan sameynaynay dad badan oo aad u fara badan in laga celiyo albaabka iyadoo 2,000 ku dhawaad ay ku jirin gudaha weliba waxaan iloobeyn oo aan rabaa in aan raadino dhalinyaro ka noqotay xafladdaas inay gashay accident ama shil qaarkoodna ay aad ugu dhaawacmeen marka waxaan jeclaan lahaa haddii aan la hadli karo inay raadisaan kulankii haweenkaas xafladda aad ka samayseen runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad aan u xasuusto wax kastoo ka hadlay waa xaqiiq markii horreysay waxaan ku hambalyeeyey sida ay safiirka iyo wasiirku ay sheegeen inaad tihiin safiiro halka loo fadhiya oo qof walba matalayo magaca iyo sharafka soomaaliyeed runtiina aad ka soo baxdeen kaalintiinna oo la idin yaqaano inaad tihiin dad shaqaysta oo aan waxba baryin dad ganacsata haysta oo runtii waddankan ku jibudgareeyey oo shaqo abuuray koonfur afrikaanka dadka ahna aaminsan inaad tihiin dad runtii xoojisaan